Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waa idin salaamay meel walba adduunka ka joogtaan. Maanta jiimkeygiyaan kusoo noqday alxamdulillaah. Ilaahay guriga iga soo bixiyey. Waxaa isku dhadhajiyeyba waa soo baxay. Dalaq waa imaade. Marka waxaan rabaa insha Allah casharadeena waxaan inay meesha nooga sii bilowdaan. Hadduu Ilaahay idmo. Hadda kadib waa kaastee waa ila soconaysiin sidaan filaayo. Hadda banaanka aan soo baxay meesha hoose waaye oo jiimka lagu sameeyo. Laakiin birahaan jeclahay ama waxaan raba koray yaalaan badanaa koraan hadda aadaya insha Allah. Meeshaan haddaa rabtid jimicsiga iyo waxaas inaad samaysid way ku fiican tahay. Kora aada hadda. Janjarta dhalaw. Qof isku dhici rabne gas. Waa kore maasha Allah. Akana korna saani u weyn tahay. Jiimkan jiim weyn waa laakiin gurigii gadaashiisa leh waa maasha Allah. Waxba iskuma jirno. Insha Allah. Hadda kadib maybe jiimka inta ku sameynaya ama gurigeyga hadduu Ilaahay idmo. oo ujeedin maanta jiimka waxa aan sameynaya la idiin soo duubaaya xoogaa laakiin hadda kadib cashar ahaan qofkii jiim aadayo iyo qofkii maxaa la dhahaa guri ku sameynayo iyo qofkii meel cidla ku sameynayo insha Allah cashar ahaan u sameynaya. Hadda waxaan sameynayaa stretchkii waa soo sameeyay korkeyga micnaha inta aan bilaabin waxba bir inaan qaado waxaan sameeyaa inaan keligay jimicsado gacmihiga kor u qaado lugahayga bidin tusin laakiin insha Allah fiidiyoyaasheeda kale hadda fiirsataan waa ku jiraan. Hadda waxaan sameynayaa birta ugu fudud waxaan sameynayaa masalkayga waxaan ka dhigayaa inuu maxaa la dhihi jiray soo xasuusto inuu wax qaado iyo bir iyo inuu shaqeeyo. Intaada bir weyn qaadin bir yar inaan qaadi marka hore aa lagu bilaabaa. Marka hadda waxaan sameynayaa bir yar inaan qaado and then masalkayga activation u sameeyo inuu maxaa la dhihi jiray shaqeeyo. Birta hadda meesheedan ku celiyay waxaan sameynayaa bir kalan ku darayaa. Adiga wax yar aan kordhinayaa hadda. Marka xoogaa kordhiyo and then haddana waa sii wadaaya. Inkastoo jiim mar hore igu dambeysay maanta camal wax badan inaan qaado mar rabo just waxa uu sameynaa korkeyga soo xasuusinaya jiimkii iyo wixii aan qaadi jiray. Bira oo fudud iska gashtay hadda waxaa sameynaa markaas squat ku sameynaa hadda birtaan tii hore waa squat waxaan sameynayay. Haddana iyadoo wax yar culus 10 kiilo camal hadda ku daray marka hore 20 ahayd hadda 10 aan ku daray 30 kiilo waa hadda. Haddana waxaan ku sameynayaa squat ku sameynaa tan. Adi marka squat xoogaa ku sameeyo maanta waxa ka shaqaysiinaya adiga lugahayga maybe dhabarkayga iyo gacmaha maanta ka shaqaysiinaya meelaha oo masalka aan rabo inaan soo xasuusiyo waayo. Then markaan xoogaa intaan sameeyo waxaan tagayaa meel kale oo bir kale tagayaa deadlift yaa la dhahaa dhulka laga soo qaadaa birtaas. Bir culus lagu qaadaa laakiin aan hadda waxaan saga qaadayaa labada gees 10 aan gashta birtan 20 waa iska 40 kiilo 40 gaas hadda qaadaya. Maanta wax badan ma sameynay oo bir culus inaan sii qaado laakiin waa iska soo xasuusinaa jirkeyga le wax yar inaan birihi aan qaadi jiray wixii aan sii wado. Hadda maalin buu sii kordhinayaa inta hadda qaada in ka sii badan sii qaadaya. Inkastoo aan u baahanahay inaan maxaa la dhahaa hilib badan loo gareeyo zaid waa caylay laakiin insha Allah ila socdo qofkii rabo inuu motivation helo ama inuu jiim ku soo noqdo ama inuu iscaateeyo waxay u tahay tan maxaa la dhahaa motivation inta la eka hadda waa jeedin inaan xoogaa caylay waa u jeedaan and then iyo sida uu caatoobi doono bilooyin kadib wada ila socotiin oo ogaan doontiin. Hadda kan waxa waaye lagu ka shaqaysiinaya biraan galgeliyay and then waxaan ku sameynaa ayadana
it's like squat camal waaye adoo sameynayo, laakiin tan dhabarkaaga dhulka ku yaala lugaha le ka nuuxsiinaysaa, lugahaaga ku shaqaysiinaysaa. Marka waxaan sameynayaa more culays kasii dhigtid more uu maxaa la dhihi jiray waxaa waaye uu masalkaaga ama waxaa qaadi kartid sii adkaadaan. Laakiin waxaa fiican marka bilaabaysid wax oo fudud ku bilowdid. Markii hore waxaan ku sameeyay birta kaliya ku sameeyay, haddana geesaha 10 aan geliyay, dan waa sii wadaaya maalin walba waa sii kordhinaya. Hadda waxaan aadayaa dhinaca gacmaha iyo dhabarka. Tan dhabarka ka shaqaysiisa iyo gacmaha. Dhabarka hadda sameynaya, and then tan markaa dhameeyo gacmahan ku sii xijinaya, kadib stretch hadda la sameynaya, because waxyaalihii birihii qaaday muruqaaga wuu isxira wuu adkaanaya. Marka waxaa loo baahan muruqaaga inaad kala jiidid haddana oo fidisid, saasaa lagaa rabaa. So insha Allah mar walba oo aad exercise sameysid muruqaaga haddana inaa maxaa la dhihi jiray waxaa la rabaa oo adoon bir wadin ama wax kala wadin haddana jimicsi kala sameysid sidoo hadhow kuu xanuunin, because markii bir la qaado muruqa uu isdhex galaya, haddana waa in la kala saaraa. Insha Allah intaad bilaabin exercise ka horna waxaa la rabaa muruqaaga inuu kululaado, macnaha warm up sameynaysa marka hore, and then warm up markaa sameysid kadib waxaa sameynaysaa wixii aad sameyn lahayd, kadib haddana stretch inaad sameysid waa haddana muruqii kala bixisid. Hadda maxaa la dhihi jiray waxaan sameynayaa gacmaha, inkastoo bire fududan wada 3 kiilo waa gacmaha waxaan ku hayo, waa iska bilaaw fudeed ilayhi inaan biibo wax yar iiga dhiman, laakiin maadaama aan wax badan qaadin bir waxaan isleeyahay wax culus hada ku bilaabin, biraha yarka iska qaad. Insha Allah kana waxaan sameynayaa waa isku mid kiile, laakiin waa asagana maxaa la dhihi jiray nooc kale u sameynaysid wax xoogaa soo forsanaysa lugahaagana waa laabe. Hadda waxaan sameynayaa stretch-kiya sameynayaa, waa iskala bixinaa hadda gacmaha kale aan waa necba gacmaha markaa sameeyo muruqayga gacmaha zaid u dhismaan. Subaxii hadhow wax ma qaadi kari, lugaha iska okay waaye. Hadda gacmahan kala saaraya iyo dhabarkii iyo wixii, and then hadda waxaan ku xijinaa lugihii inaan kala saaro ayagana, lugaha sameynaya hadda insha Allah. Tanaan sameynaya lugteeda waa inaan gadaal ka soo qabtaa, meesha hore cajirka kala baxaysa markaas muruqa cajirka camal kala baxay, and then because muruqahaas aan wal dhisay, waxaan sameynaa muruqahaas dhismaa hore, markay muruqahaas dhismaan waxa waaye way isdhex galayaan. Haddana lugta kala sameynaya, bes lugtaan ay ugu dambeysay insha Allah. خير أيدين كجتجي مع السلامة.